السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا مركلة كورسكيني فوارث الموديل دبكة أفكس منتشيب كينن فوارث موديل وينو سعودي وحن ما قادن إن عشر كيني أفراد. عشر كيني أفراد كوساب سنة إن شاء الله. أودر فلوجا متقنا مالين كاغا سادو جيهين كرتو أما ديلي بايس كسادو ديارين كرتو. هذا بس يا ديلي بايس كاغا وديارسو أما أتشهد مالين كاغا ودرتو وين هرتو مركو هوريسان isla baranaa qaacidada loo yaqaano open high low close iyo open low high close ina qaacida caawa isla baranaa ama OCHLC ama OLHC. wayna qaacidada caawa si clean isla fahano marka qaacidada fahanto mar dambe kuma dhibi doono inaad biaskaaga ama daily biaskaaga inaad jiha saxa u dirto. hortu markaynu ugu horeyn aynu qaadanayno mataqaanaa daily biaskeena qaadanayno horta waynu fahnaa horta types of candleska. Types of candleska marka hore waxaynu fahansanayn laba qaabood oo ahaa buy candle iyo sell candle. labadaas maynu fahansanayn. waxaynu qaadan doonaa insha allahu maxay u kala baxaan candlelada noocyadoodu. horta saddex qaab baynu kala qaadi doonaa oo ah continuation candle, reversal candle iyo indecision candle. haddana si kalena haddaanu dhigo waxa weeyaan continuation candle mataqaanaa maalin continuation candle ama continuation day, reversal day iyo indecision day. saddexdaa cisho maxaa lagu kala gartaa, maxay lagu kala saaraa maalinka la leeyahay maalinkan waa continuation day iyo maalinka waa reversal day baa dhici doona sessionkan iyo indecision baa dhici kara sessionkan ama maalinkan maxaynu ku kala saari doonaa. si aynu isla fahanno marka hore qaybtaas waa kuwii biirishka ahaa kuwana oo buulishka ahaa. haddaba kandhalka mataqaanaa buulishka ahi wuxuu sameeyaa waxa la yidhaahdo open low high close. open low high close ama OLHC waa maxay? pricekan muxuu ka furmaa badanaa kandhalka buulishka wuxuu ka furmaa halkaa hoosuu ka furmaa markuu buulishka sameeyo waa inuu sameeyaa hoos loo dhaqaajiyo la dhahdo open markuu sameeyo waa in low lasoo sameeyo horta oo kandhalkii hoos loo dhaqaajiyo, then marka hoos loo dhaqaajiyo and then priceka waa in dib loo soo kaxeeya oo la keenaa maxay upside la keena oo la sameeya open low high and then close. marka closekiisina ma yahay waa kan. marka waa maxay muxuu qaadanaya qaacidada open low high close. okay si kale haddaanu dhigno the power of three mina soo qaadanin waxa weeyaan waa maxay accumulation, manipulation iyo distribution. saddex xafis buu maraa gebiga ka dhalka dhaniba. open high low close, open low high close. ama si kale haddaanu dhigno waa maxay the power of three waabu maraya ama AMTD ahaa accumulation in la sameeyo, open la sameeyo and then in manipulation yaro hoose la sameeyo and then inuu distributionkii sare inuu dhaco. waa candlekeenii maxay ahaa buulishka ahaa. haddaba candlekeenan reversalka ahi muxuu kaga duwan yahay keenan continuationka? wuxuu kaga duwan yahay halku keenani uu halkiisa jiha ku dhammaystay ee buulishka ku dhammaystay maalinkiisaas inuu kani ku dhammaysan doono maalinkaa laba face. inuu tusaale London session oo kale in hoos loo soo dhaqaajiyo then New York reversal la sameeyo. ma fahamtee in inta la sameeyo London dhaqaaq hoose la sameeyo in New York inuu reversal sameeyo baa dhacda sida caadiga waana de wax normal suuqa saddex face bas oo loo diyaariyay baa taas. haddaba maalinkan ama candleka reversal candleki muxuu sameeyaa si waxa weeyaan qaacidadii hore muu la wadaagayo dhammaan qaacidooyinka way ka sameeyeen open high low close kooda way ka sameeyeen laakiin the way ay u sameynayaan formation kooda way ku kala duwan yihiin. okay price keenani openkiisi waa kan then maxaa la sameeyey lowgaasa loo dhaqaajiyay suuqii. waxaa laga yaabaa Asian ilaa London oo dhan hoos baa loo waday suuqan, hoos baa loo waday then London lunch ama New York baa dib loo soo reversal gareeyay. marka reversal ka dhacay dib u soo dhacay muxuu sameynaya marka qaacidadii muxuu ka saaray wuxuu si habeeyay qaacidadii ahayd open high low close. haddii uu ka waran candlekeenana sii socon lahaa oo bartan ku xidhmi lahaa qaacida dambaynu qaadan doonno oo bearish candleka lagu eego baynu ku arki doonaa buu sameynaya marka candleka. okay kan kalena waa maxay isna indecision candleki waxa weeyaan candle doge candle bay u naqaanay candlekan ama inside parna waynu odhan jirnay, pin par baynu odhan jirnay, magacyo badan baynu ugu wici jirnay candlekan. waxaa jirta maalin indecision candle
oo labada jiha midna aan lahayno suuqu saas ugu dhex noqnoqonayo soo see lagu garan doonaa maalinkaana xagga dambe baa insha allah si fiican ugu sharaxi doonaa examplada ku xiga. Okay, kan haddaba isagana mataqaanaa biirishka ahi suu u samaysmaa waa same isaguna. waa maxay continuationkiisi qaabkan u samaysmaa muxuu sameeyaa openkiisi miya markaa muxuu kaga duwaya kii hore. kii hore wuxuu ahaa open low buu ahaa soo maha. kan wuxuu samaynaya isagu open high badanaa wuxuu ka furmaa kernelka selkii xagga sare ka furmaa dan muxuu sameeyaa open high buu samaynaya marka hore. marka kii hore muxuu samaynaya isaguna open low buu samaynaya kii bullishka ahaa. laakiin kan cagsigiisu samaynaya waa maxay open high open buu samaynaya then high buu soo samaysanaya and then low then close. so waa kii hore oppositekiisa intaa way ka sameyn yihiin bidixda ka xigta. kana waa maxay in isagana uu bullish ka dhalkan ku socday sessionka qaybihiisii hore London oo kale Asian oo kale inuu ku socday bullish ku socday and then uu reversal dhacay soo dhacana xagga dambe ku eegi doona. pinbarkana waa maalin bilaa jiha ama indecision day ama indecision candle xagga dambe iyagana si fiican isugula saarka doona qaabka maalmahan ay u soo diyaariyeen u diyaargaroobaan iyo qaabka looga tirgalay. haddaba waxaan eegi doonaa bullish candlekii weligii continuationka habeen eegi doonaa oo waa maxay open high low close. maalinkaasi haddaad u diyaarisa in maalinkaagaasi samaynayso qaacidada ah open high low close inay samaynayso scenario-haaga dhan waynu kusii diyaarsanaado. so waa maxay minka price keenani muxuu sameeyey open buu sameeyey soo ma arkaysaan openkiisi ma yahay Asiankiiba open ah lowgii mee London baa lowgii soo samaysay ma arkaysaan and then maxaa la sameeyey highgii baa haddana la sameeyey candlekan highgii ma la sameeyey and then closekii baa la sameeyey. waaba intaaba waa maxay openkiisi waa kan intan waa maxay waa weliba kilingaraya suga intan waa maxay waa openkiisii mee lowgiisi waa kan highgiisi mee waa kan closekiisi mee waa kan OLHC ama open low high close waaba intaaba. marka maalinkaaga markaad garanayso waxa weliba xagga dambe kusii qaadan doonaa mataqaanaa simplest way aad kusii garan karto maalinkaagaas maxay samayn doontaa predictionkeedana halka dambe si fiican ugu sii qaadan doona. qaybta waad fahanteen saan filayo. kan kale aynu nimaadna isagana kani waa maxay isna waa bearish candlekii continuationka habeen weli joognaa. waa maxay open low high close kii baan joognaa ma yahay openkiisi mee markan waa kan openkii candleka soo maha. laakiin markaan u daadegno lower time frameka kan waa daily candlekii soo maha ila waa daily candlekii baynu joognaa waa maalinkii baynu candlekii weynaa baynu sheegaynaa. so markaad lower time frameka u daadegto bidixdeedna waa taqadaa marka maxaa dhacday maalinkii baynu jebinaynaa marka candlekii maalinka waa kan Asiankii openkiisii sameeyey badanaana accumulationka wuxuu dhacaa Asianka sidaad caadigeed ogtihiin. maxaa la sameeyey in la sameeyey accumulationkii ama openkii and then highgii la sameeyey Londonkii and then lowgiina la sameeyey New Yorkii closekiina la sameeyey maxay New York PM sessionkii in la sameeyey baan arkaysaa. waa maxay open high low and then close. okay intaas waa kiliin sooma si fiican baad u fahanteen. haddaba aan yar dib u noqdo si aan in yar wax idiin soo fahansiiyo maalinka. haddaba badiyaa maalinka mataqaanaa bullish candleka ama maalinkan ka rabno inuu jihadeenasi buy noqoto maalinkeenaasi averagekiisa 95% London waxay samaysaa low of the day. ma fahante London maxay samaysaa low of the day bay samaysaa taasoo clean maaha hadda. okay New York wuxuu sameeyaa high of the day buu badiyaa sameeyaa laakiin haddana reversalka haddana ayaa la sameeyaa haddana New York dhexdiisa. New York waa laba qaybood New York PM session iyo New York AM session. okay dhankan aynu isla eegno isna muxuu kaga duwan yahay kii kale waxa weeyaan badinaana waxaa la samaystaa markuu candleku bearish yahay high of the day waxaa la samaystaa Londonka baa la soo sameeyaa. low of the dayna maxaa la sameeyaa New York waa 95% ilaa 98% macal gaarsii maalmaha qaar. okay haddaba reversalki waa kan reversalkeeni waa kan reversal ka dhaka si fiican isla fahano maadaama badiyaa reversal ku trade garayno. okay halkan maxaad uga jeedaa inuu samaynayo openkiisi waa kan lowgii waa kan highgii open low highgii waa kan closekiisina waa kan. haddaba aan isla fahana marka suuqii waa kan openkii baa la sameeyey soo ma arkaysaan openkii ma la sameeyey London maxay samaysay high bay samaysay then maxaa la sugayaa okay London waxay samaysay high of the day and then waxaynu sugaynaa inuu New York samaysto low of the day oo hoos loo sii socdo baynu ka fikiraynaa soo ma dad baan ka fikiraya laakiin
reversal baa dhacaya oo adigu maxaad ku garanaysaa reversal dhacaya xagga dambaan kugu si fiican kugu fahansiin doona mataqaanaa si aanan ku confuse karayn xagga dambe si fiican ku fahansiin doona dadkii badnaa is lahaa okay maalinka waxaa lasii samayn doona waxaa lagu socon doonaa hoos ama waa lasii wadana waxay noqon doonaa maalin birish dheye bay noqon doontaa den maxaa la sameeyey reversal maxaa la samaystay high of the day so intaas clean maaha gebigeeda markaa waa intaa reversalkuna san u dhacaya markaa lower time framekii markaan nimaadno higher time framekii waa kan structurekiisii laakiin lower time frame markaan kusoo dadegno wuxuu samaynaya kane accumulationkiisii and then maxaa la sameeyey manipulationkii then distributionkii baynu nidhi waa la sii wadaya markaas laakiin maxaa dhacday inuu reversal dhacay reversalkana maxaad u dhacday xagga dambe si fiican kugu fahansiin doonaa bal hortu intaa qoro oo intan note gare insha allah biidmillah okay bearish reversal dhiguna waa kan isagana ma maxay muxuu sameeyey open buu sameeyey and then high buu soo sameeyey soo maha low close baan ku samaystay inta baan halkan ka eeganaa markaa isagana inuu sameeyey openkiisi waa kan and then maxaa la sameeyey highgii baa la sameeyey dad badan maxay islahaayeen okay price-keenani mataqaanaa waa la sii wadi doonaa kor baa loo sii wadi doonaa bay dad badan ay dhiyadooda gelinayeen baa laga yaaba marka loo eego structureka maalinkaasi then maxaa la sameeyey muxuu sameeyey openkiituu sameeyey waa haddana dib usoo reversal gelay openkiisi waa kan highgiina waa kan lowgiisi waa kan closekiisina waa kan oo then maxaa dhacday in lasoo reversal gelay intaasina soo clean maaha okay haddaba indecision dhaygi waa maxay dalka indecision dhaygi waa tan oo kale halkaama trade baa ka baxaya trade baa ka dhex baxaya waa maya asianki waa consolidation londonki waa consolidation new yorki waa consolidation soo ma arkaysaan muxuu udhexeeyaaba asian highgii iyo wuxuu udhexeeyaaba previous daily low iyo previous daily highba buu udhexeeyaaba dhanba uma dhaafayaba halkan waa bdhkii halkana waa bd lowgiiba ama previous daily lowgii iyo previous daily highgii buuba udhexeeyaaba dhanbaba uma dhaafaya maalinkaasi oo waa maxay open high low closekeeduna waa mataqaanaa sharcigii ka dhalka ku furmayo wuu samaynaya mar walba open low and then high close wuu samaynaya oo sharciga ka dhalka inuu samaysmaa taasa laakiin ma laga trade garayn karaa no way may maalinkaasi maalin laga trade garayn karaa maaha okay aan sii eegno kiisan kalena waa kan isna markaan biirka joognana waa maxay openkiisi waa kan londonkii waa kan new york waa kan so waa maalin u dhaxaysa iyaduna labada xarijimood ee previous daily highga iyo previous daily lowga so that means lagama trade garayn karo maalinka uu samaysmo pinbarka ama maalinka aynu soo helno qaacidadan mataqaanaa indecision handalka maalinku samaysmo okay haddaba dhowr tusaalaan qaadan doonaa intayna dhowrka tusaale qaadan baan rabaa inaan hal shay kusii dhex dara marka haddaba aan u baahanay inaan sii fahantaan okay marka daily structureka la joogo waxaynu u baahan nahay in sidoo kale dhacdo tusaale ahaan waa tusaale keenani okay kan waa maxay previous daily highgii baa la qaaday soo maahan maxaa la sameeyey waxaa lagu xidhmay banaankiisa suulo qaacidadan si fiican baan ugu sharaxi doonaa examplada dambe laakiin halka si fiican ugu faham waa maxay previous daily highgii baa la qaaday dan banaankiisa lagu xidhmay that means maalinka xigta waa continuation oo maxaa loo sii wadi doonaa jihada kor baa loo sii wadi doonaa and then maxaa dhacday previous daily high kala haddana la sii qaaday banaankiisa lagu xidhmay haddana another more time inuu price keenani uu sii noqon doono continuation oo jihada kor loo sii wadi doono and then maxaa dhacday previous daily high baa la qaaday gudaheedii baa lagu xidhmo mataqaanaa kor lama socon maxaa dhacday hoos baa loo soo celi so markaysa qaacidada yar baan xagga daba ku sharxi doona inaan sii confuse garayna ma rabo tusaalash la aadna insha allah okay hadda waxaan joogaa daily candlekan joogaa so daily candleka ama daily time framekan joognaa so qaacidadan eegayna waa maxay waxaynu eegaynaa marka ugu horeysa saan horey kusoo sheegay in previous daily candleka highgiisa iyo lowgiisa calaamadinaysaan then markaad calaamadiso previous daily high lowgiisa markaad calaamadiso waxaad eegaysaa kii ka horreeyey kamaad ka bilaabaynaababa candleku wuu furmay then wuxuu qaaday previous daily lowgu qaaday and then banaankiisa ku xidhmay maalinka xigta maxaad ka sugaysaa inay sii noqoto continuation sell ah maalinka xigta way sii qaaday lowgiisii hoos bay kusii xidhantay and then maalinka ku xigta waxaad ka sugaysaa maalin kale sell ah and then maalinka ku xigtay baa timid then waxay qaaday previous daily lowgii bay qaaday and then guduhu ku xidhmay oo candlekeenaas wuxuu noqday candle mataqaanaa week baa qaaday so maadaama week qaaday waxaan odhanaynaa uma tixgelinayno uma odhanayno pricekeennii mataqaanaa waa la sii wadaya waa reversal indicator marka halkaasi okay
mar kasta oo bari lagu xidhmo oo bari mataqaanaa banaankiisa kanalkii previous daily logii mataqaanaa lagu qaaday bari lagu qaado oo banaankiisa lagu xidhmo macnaheedu waxa weeyaan waa continuation maalinka ku xigta hadda maalinkan maxaa dhacday in lagu qaaday week soo markaysaan dan closekiisa xagu noqday guduhu noqday dan maalinka xigta waxaan ka sugaynaa continuation mataqaanaa waxaan reversal bay ka sugaynaa maalinka xigta inay noqoto oo kor loo sii wado and then haddana maalinka xigta inaynu weli kor sii wadno lianna maxaan kor ugu sii wadaynaa previous daily high baa la qaaday banaankiisana lagu xidhmay and then maalinka ku xigtay previous daily high baa la qaaday haddana maalinkan kalena previous daily high baa la qaaday and then banaankaa lagu sii xidhmay soo markaysaan banaanka haddana lagu sii xidhmay and then continuation bay kusii soconaysaa so qaacidada yara kooban baynu isticmaalayna haddii previous daily low lagu qaado oo bari lagu qaado continuation buu noqonaya haddii previous daily low lagu qaado mataqaanaa bari lagu qaado continuation buu noqonaya haddii previous daily low lagu qaado oo laakiin weekly lagu qaado reversal buu noqonaya reversal buu noqonaya okay haddaba maalinka indecision candleka waa maalinkii haddaba maalinka badanaa uu samaysmo indecision candleku ama maalinka bilaajihada uu suuqu noqdo anadhaa uu isku dhex daataa waxa weeyaan tusaale ahaan pricekeenani maalinkii ku xigtay baa furantay inagoo ka rabna inay noqoto maalin continuationa so waxa dhacday maalinka ku xigtay inay samaysaba maxay inay labada dhinacba dhinac qaadi weydo dan maalinka ku xigtaa maxay noqonaysaa iyaduna still waa continuation maalinkii ka horreysay noqotay baalkii noqotay sorry consolidation noqotay maalinka xigta maxaad uga baqaysaa in iyaduna consolidation noqoto dan waxaad sugaysaa in priceka lagaga saaro consolidationka oo maalinka ku xigta ma trade-garaynaysidoo waad sugaysaa waad daawanaysaa in labadan mid lowga ama hayga mid lagu qaadayo ta ku dhacdo haddii kan lagu qaado oo mataqaanaa gudihiisa lagugu soo xidhmo then waa reversal haddii kan lagu qaado oo gudihiisa lagugu soo xidhmana waa reversal hoose so reversal yaa odhan kan waa continuation buu noqonaya haddii inta kan laynoo qaado haygiisa gudihiisa laynoogu xidhmana reversal buu noqonaya haddii lowgiisa laynoo qaadana oo mataqaanaa gudihiisa laynoogu xidhmana wuxuu noqonayaa continuation buu noqonaya so maalinkani previous daily high iyo low toona may qaado way ku failgarooday kanna inay qaado way ku failgarooday kanna way ku failgarooday inay qaado so maalinka ku xigta inta garaynayno labada dhinacnaba midna ma raacayno waxaynu rabnaa in laynooga saaro horta consolidationka maalinka laynooga saaro suuqi jiha loo dhaqaajiyo dan markaan aragno suuqi jiha loo dhaqaajiyo tusaale londonkii uu qaaday previous daily lowgii uu qaaday oo mataqaana haddana gudii lagu xidhmay new yorkii maalinka ku xigta jihaynu haysanaa xidhan karnaa waynu baay garaynayna ama waynu isla garaynayna qaacidada dhacda bal tusaalayaal nool aan isla yara eegna insha allah okay halkan maxaad uga jeedaan bartaana suuqu mareen ka bilaabay halkan waxaad uga jeedaan in previous daily high laynoo qaaday andan banaankiisa leegu xidhmay andan haddana maxaa dhacday continuation baan kasii sugaya soo maha andan halkan maxaa dhacday in previous daily high haddana laysii qaaday dan haddana maxaa la dhacday in laygu xidhmay banaankiisii maxaan sugayaa marka in continuationka laysii samaysmo then previous daily high previous daily kanalki kale muxuu sameeyey intuu ii qaaday previous daily highgii uu haddana gudihiisa ku xidhmay hadda halkaa u fiirsada eega previous daily high baa laga qaaday dan gudihiisa lagu xidhmay dan maxaa sugaya reversal candle inuu noqdo candleka ku xiga okay reversal candle inuu noqdo candleka ku xiga inuu noqdo okay maxaa la sameeyey previous daily high baa laga qaaday sorry previous daily high baa laga qaaday halka lagu xidhmo in eegina marka halka lagu xidhmo baynu eegin okay maxaa dhacday in banaankiis lagu xidhmo dan maxaan sugaynaa in weli continuation haddana ka kala sii noqdo baynu sugaynaa previous daily high sorry candleka kale maanta furmay daily candlekii inuu isagu weli continuation noqdo baynu sii rajeynayna haddana leanna maxaa dhacday in previous daily highgii laynoo qaaday banaankiisana laynoogu xidhmay dan maxaynu ka sugaynaa maxaa dhacday marka in laynoo qaaday previous daily highgii dan gudis laynoogu xidhmay soo maha dan maxaynu arkaynaa in reversal uu dhacay dan candle ku xigay maxaynu sugaynaa maadaama previous daily lowgii qaaday inuu banaankiisa kusii xidhmaynu rabna uu sii noqdo maxay uu sii socdo continuation uu noqdo candle ku xigaayo si loo sii dhaqaajiyo baynu ka sugaynaa okay maxaa dhacday in laynoo sameeyey maxay haddana selkii laynoo sameeyey previous daily lowgii laynoo sii qaaday weli waana calaamadin afkeenan kaba hadlinba previous daily lowgii baa laynoo sii qaaday previous daily lowgii baa laynoo sii qaaday dan banaankiisa laynoogu sii xidhmay dan maxaynu sugaynaa in pricekeenan uu inoo sii noqdo haddana maxay price low sorry birish inuu noo sii noqdo baynu rajaynaynaa weli okay dan maxaa dhacday haddana in pricekeeni weli banaanka haddana ku xidhmay intuu previous daily lowgii intuu qaaday inuu haddana banaankiisa ku xidhmay soo ma arkaysaan still maxaynu haddana rajaynaynaa weli maalinkaas inay noqoto maalin continuation oo se loo sii wada haddana suuqii okay haddana maxaa dhici doona maxaa dhacay markaa maxaa dhacday maalinkan inuu pricekeena qaaday previous daily lowgii banaankiisa laynoogu xidhmay still waxaynu sugaynaa maxay in birishkana loo sii noqdo candlekeena ku xiga
baynu sugaynaa. Okay, maxaa dhacday in mataqaanaa briefs daily low laynoo qaaday, haddana still uu sii noqday maxay candlekeena kalena uu bearish sii noqday. So aduu maalin kasta waxaa target ku ah previous daily high iyo previous daily lowga. So maxaa dhici doona? So saako kale aan soo maaha, waxaan shalay oo kale su'aalaan idin siinaya haddaba. So loogu trade gareeya waa maxay? Ka soo qaad maantaan joogaan trade gareynaya, waa candleka cagaarka baan maantaan trade gareynaya, raba inaan galo. Sen marka ugu trade gareynaya, ugu analyze gareynaya, waxaan ugu analyze gareynaya, waxaan eegayaa, sorry, waxaan eegayaa previously maxaa dhacay, waxaan eegayaa maanta waa tan, shalay maxaa dhacay. Shalay baan eegaya, waxaan leeyahay shalay toole candlekii daraa toole haygiisa iyo lowgiisa kaga qaaday. So waxaan leeyahay waxay qaaday lowgiisa iyo haygiisa. So haygii bay qaaday soo maaha. Then intay haygii qaaday bay haddana weliba ku xidhantay maxay previous daily lowgii, haddana intay lowgiisa sii qaaday bay lowgiisa ku xidhantay. Meesha adiga muhiimka kuwa waxa weeyaan waa closing price-ka. hadda ma fahantay closing price focus ka saaraysa. So maxaa dhacday in price-kii to previous daily lowgii qaaday inuu banaankiisa igu xidhmo. Maantaan trade garaynayayo, maanta waxaan leeyahay scenario-haygu waa sell maanta marka. oo waayo maanta maxaan u sell garaynaya? Shalay tole continuation bay ahayd, maantana continuation baa laga sii sugaya. oo maxaa ii caddaynaysa inay continuation noqonayso? Previous daily candlekii muxuu sameeyey baa ii caddaynaysa. isla fahanay halka? Okay, marka ilaa hadda waxaan ka hadlayo qaabka daily biaska loo diro baynu ka hadlaynaa. Okay, maxaa dhici doona kadhalkeena ku xiga markaa? Okay, maxaa dhacday kadhalkeena ku xigay inuu inoo sameeyey isaguna haddana maxay inuu previous daily lowgii inoo sii qaaday oo still continuation inoo sii noqon. So dhammaantiibaba intaasaad eegaysa haddana. Halkan haddabaan in yar kusoo celiyey marka candleka mataqaanaa candlekana kale oo fiirso muxuu sameeyey? waa reversal candle. maxaa la sameeyey in intoo hoos loo dhaqaajiyey in New York reversal lasoo sameeyey. laakiin haddana waxaynu eegaynaa dhayligeenii, waxaynu eegaynaa aagga lagu xiray. So maxaa keenaya? bidixdeena keenaysa, waxaa ka dhacay bidixdeena fair value gap baa yaalla. So kaasi reaction ka samaysa lacagtani. So laakiin iminka ma raba inaan analyze kaas aan galo. berri toole, sorry, berri aan odhanin, casharka ku xiga baynu si fiican ugu falanqayn doonaa, inkastoo cashar dhammaystiranna aynu ku wada qaadan doono. intaas misla fahanay. kana kale waa maxay isaguna? waa reversal candle. muxuu sameeyey? continuation candle. muxuu sameeyey? intuu inoo sameeyey openkiisi inoo sameeyey buu highgii inoo sameeyey, and then lowgii buu inoo sameeyey, then closekii buu sameeyey. sida looga trade garaynayo horta waxaa ka horeysaa sidee biaska loo saxdaa. biaska iminka kuu saxsanyay soo maahan. daily biaskaagii ama maxaa la odhan jiray order flowgaagii haddeer waa sixi kartaa. order flowgaagii inaad higher high higher lowgii higher high higher lowgii, intaas waa basic gide, intaa waad garanaysaa oo uma baahna inaan caawa anigu dib ugu laabto. laakiin waxaan u baahannahay inaynu garanno maalinkeena maxaynu sugaynaa, daily biaskeenu waa noocee, jihadee baa loo dhaqaajinaya, xaggee loo wada suuqa, xaggee la geynaya. intaas waa clean baan rajeynay. So haddaad doonto dib ugu noqo baatistin samee, mid kasta bal candleka maalinkii hore u saaro, saad ku wado waad ku wadaysaa. So hadhow tole maxaa ku darsanaysaa? xagga dambe ku dari doonaa confluenceska kale baynu raacin doonaa insha allah. laakiin daily biaskaagu haddeer waa ku clean. commentiga kusoo qor inuu clean ku yahay iyo inuusan clean ba ku ahayn labadaba.